waxaana gudoomiyaha xabsiga ku soo dhaweeyay taliyaha qaybta asluubta ee gobolka Togdheer gaashaan la sare Jaamac Baadi isagoona ugu warbixiyay tirada maxaabiista soo gaadhay xabsiga gobolka Togdheer iyo sidoo kale waliba xaalkooda waxaanu joognaa xabsigii Burco waxaan ugu soo booqday barasaabka gobolka taliyaha booliiska waxa kale oo halkan fadhiya maxaabiistii maalintii dhaweyto la keenay ee dagaalka lagu soo qabtay oo annaga ka xabsi ahaan ka kooban intana soo gaadhay 9 nin wey 9 ka xubnood ee soo gaadhay 3 waxay yihiin 3 noo dhaawaca 6 kalena way bad qabaan runtii marka laga hadlayo sidii dhaqanku ama caadadu ahaan jirtay waxay ahaan jirtay waa la dagaalamaa raggu u dagaalamaa iska hor yimaada caadaday ahaan jirtay iyadoo weligeedba la istilayo in qofka saacadda gacanta lagu dhigo in la badbaadiyo waa dhaqankeennii iminkana waa arkaysaan maxaabiistii oon waxba qabin wada labisan 3 maxbuus ee annagu aanu gacanta ku hayno 9ka 3 ka mid ah dhaawaca 2 iyagu waxay noqdeen sawiraanu geynay waa la sawiray 2 waxay noqdeen dhayme oo rasaasi kuma jirto dhaqaatiirta u xil saaran waa la daweeyaa waa la dhayaa hal nin oo ninkii gaashaanlaha ahaa korneelka ahaa ee maxaabiista ka mid ahaa qalleyn buu noqday isagu hawshiisii waanu ku jiraa haddii ilaahay idmo isagana waa la kabi doonaa waa la daaweyn doonaa waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo isagoo u mahad celiyay ciidanka asluubta ee gobolka Togdheer guud ahaan gobolka Togdheer ee xaruntiisa Burco waxa soo gaaray 12 maxbuus sida taliyuu sheegay waxa jooga xabsiga 9 maxbuus oo 3 dhaawac tahay fudud 3 kale waxay yaaleen cusbitaalka ayaa lagu dabiibayaa sidoo kale waxaan u mahad celinayaa ciidanka asluubta ee gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco oo si wanaagsan oo qiimo leh maxaabiistii soo gaadhay nolol dhaqmay ilaa haddii la haydmo inta ay joogaanna si wanaagsan oo dadnimo leh oo xushmad leh oo dhaqanka reer Soomaaliland iyo guud ahaan soo yaqaanay in maxbuus in la wanaajiyo la maamuuso la dhaqaaleeyo intaba ay haddii la haydmo ay tahay runtii waxaan arkayay baryahan social media ee dad propaganda iyo been ka wada oo sawirro photoshop runtii isu geeynaya oo le maxaabiistii dagaalka lagu qabtay waxa lagu laayay waa la laayay Burca lagu laayay Gooja Cadda lagu laayay arrinkaasi maanta waxaanu cadaynaynaa bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan guud ahaan inta afka Soomaali ku hadasha inay maxaabiista yihiin maanta dadka in hor fadhiya runtii quruxda badan waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah maxaabiistii laga soo qabqabtay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyagoona ehladooda u sheegay inay bad qabaan alxamdulillah summa salaatu wassalaam ala rasuulillah ilaahay baa mahad iska leh isugu keenay meesha tan maanta waxaan joognaa xafiiskii taliyaha asluubta ee gobolka Togdheer waa nabad qabnaa dhamaantaya ragayga maxaabiista ah oo lagu soo qabtay dagaalkii ka dhacay maalintii dhaweyd meesha la yiraahdo Gooja Cadde adigu waxaan propagandada iyo wax dadka sii kala fogeeyay weeyaan wax aan qabno oo liba ma jiraan dhaawacayga ana hadda intaan xilxilan ana ugu dhaawacliitay anigana inta waleela tacaalaya ragii kale raaja la soo wada saaray waa la baaray maanta laga bilaabo waxaan leenahay dad goba gacanta lagu dhigay oo nasaba oo si hufan noola dhaqmay oo qaraabadayada iyo ehelkayga dadkii noo imaanayeen noo soo daynayay si qurux badan baan noola dhaqmay waana aragtaan maanta wax naga muuqda ma jiraan gurigii shalay aan ka soo dagaal tagnay iyo kan waa isku mid wixii khilaafaada wixii lagu dhamaysanay iyaga u taalaas laakiin anagu tolkay iyo gacalkay ehelkooda gacantooda ku jirnaa maanta sharaf maanta noo laaban ma jirto dadka yaa la sharaf dilin waa iga dardaaran dadka yaa la sharaf dilin nalama layn nalama jir dilin nala kuma tacadiyin
warso markhaatiga ma aydin dadka kale oo bulshada kale oo gobolada ku sugan halkan gobolkan dad annaga abaan kula kulmay oo jooga oo si fiican loola dhaqmayo oo si fiican ugu imaanaya maxaabiista kale oo halka ku sugan dadkooda iyo ehelkooda si fiican hawlo kulmaan oo loo sii daayo oo hala kulmaan sida annaga loogu sii daynayo oo kale ayagoo annaga nala mid yihiin waqti فلان كدب وحن كور بحنايا أنا وحن هين حبيستي لو صوتي دجالكي سديدي طونكي بشتن لا سعانه هذا كلامني أدرس لا بدي بنجونا وبرواقي سنة هاي رجالك لو سجال بان هاي سجال كن وحي داوع حوالي الدوية وحي هذا وحال سين السوان أحسن بالولا تعالى يا أنت إذا كان وبرواقي سنة هاي وافق ما تقول في عين وضاونا إنسان خياري marka dadka magaxmada iyo soomaaliya wadanka marin waxaan leenahay warkaas halka ku haro khiyaareey haddana ragu waa barwaaqaysan yahay gurigoodii baa laga soo qabtay gurigoodii bay joogaaneen sida